Tubyo ka tirsan ciidanka xasilinta caasimadda Laascaanood ayaa si weyn u sugaya amniga boqorka beelaha Daarood, Boqor Burhaan, Boqor Muuse. Boqorka ayaa ciidamadii la socday waxa ay ku hadheen duleedka magaalada Laascaanood. Amniga caasimadda Laascaanood kan guud ee shacabka wufuudda caasimadda soo booqanaya waa waajibaadka ciidanka xasilinta ee SSC Khaatumo. Waa ciidamo si gaar ah u tababaran lagana soo ururshay ciidamada militariga iyo booliiska SSC. Ciidamadan ayaa kuwa u tababaran howlgallada khaaska ah waana booliis militari ah. Tan iyo intii Laascaanood ay la wareegeen ciidamada militariga SSC Khaatumo waxay u baahatay inay abuurto ciidamo si gaar ah u tababaran oo suga amniga gudaha iyo kan wufuudda caalamiga. Tan iyo intii la asaasay waxay Laascaanood ay ka nadiifiyeen khamriga maandooriyaha, tooreyda iyo qori in lagu dhex wato gudaha magaalada Laascaanood. Waa kuwa heegana oo meel kastoo Laascaanood ah jooga. Ciidamada xasilinta SSC Khaatumo ayaa ka kooban kuwa sirdoon, kuwa dharcada iyo waliba kuwa aan ka garanayn shacabka. Waana kuwa si toos ah u hoostaga maamulka SSC Khaatumo. Waana ciidamada ugu mushaharaadka badan ciidamada SSC Khaatumo marka la fiiriyo militariga iyo booliiskaba. Ciidamada xasilinta SSC Khaatumo ayaa ku sii baahaya inay ka howlgalaan degmooyinka, tuulooyinka iyo gobollada SSC Khaatumo. Daawade, sidee u aragtaa haddaad reer SSC Khaatumo tahay? weli si toosa iyo si dadbanba mawla shaqaysay adigoo ka duulaya amniga guud ee shacabka SSC Khaatumo. Laascaanood waa caasimadda maamulkaas. Maamulkan cusub ayaa xoogga saaray siduu amni uga dhigi lahaa magaalada. Madaxweynaha SSC Khaatumo Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye ayaa sheegay in Laascaanood ay noqon doonto tan ugu amniga badan guud ahaanba gobollada Soomaaliya. وقف عليك ma ku nooshahay caasimadaha North America sida Minnesota, Ohio, Seattle, Washington, Alberta, Canada, Ottawa, Toronto iyo guud ahaanba wadamada Mareykanka iyo Canada. Ma tahay shakhsi ku yar yahay dhaqaalaha soo gala oo aan kaafin karin biilasha? Ma tahay tahriiba darbiga ka soo booday oo weli aan helin warqadaha shaqada? mase la daalaa dhacaysaa biilasha iyo baahiyaha asaasiga? Mudanayaal iyo marwooyin, shirkadda saddexaad ee ugu weyn Mareykanka soona saarta agabka caafimaadka, dawooyinka iyo agabka isqurxinta dumarka ee heerbalka ayaa bishan Oktoobar ee sanadkan waxay Soomaalida u fududeysay sida ay dhaqaale aan xad lahayn u samayn lahaayeen iyagoo jooga guryahooda una ka feyn lahaayeen baahiyahooda asaasiga. Shirkadda oo ay maanajarad ka tahay gabadha Soomaaliyeed ee reer North America ee indhaha u ah Soomaalida jeebyaraha ah ayaa mashruucan isku soo dubariday. Manager Sacdiye Xirsi waxay kugu xidhaysaa shirkaddan waxayna kuu tababaraysaa qaabka aad u shaqaysan lahayd adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada. Manager Sacdiye Xirsi ma kugu xidhayso shuruudo sharci dawladeed. Ma tahay qof ay ka go'an tahay inuu shaqaysto kaafiyo baahiyihiisa asaasiga. Manager Sacdiye Xirsi waxay awood ku siinaysaa inaad badeecooyinka shirkadda soo saarto, aad awood u yeelato inaad iibiso adigoo macaash ka raadinaya. Shirkadduna ay ku siin doonto macaash dheeraad ah oo bilo ah weliba. Haddaad noqoto halyey ama halyeeyad badeecooyinka shirkadda si weyn u suuqaysa, shirkaddu waxay ku siin doontaa dalxiis iyo weliba inaad hesho abaalmarino ay ku jiraan baabuuro qaali ah, dalxiisyo wadamada dibadda. Manager Sacdiye Xirsi waxay kugu hagaysaa wadada guusha. Fadlan haddii aad joogto wadamada North America sida Mareykan iyo Canada, la xidhiidh Manager Sacdiye Xirsi adigoo kala xidhiidhaya nambarada shaashada ku qoran. Waa nambaro WhatsApp ah adigoo fariin qoraal u diraya marka hore ama fariin cod ama waliba wacaya ama ku biiraya linkiga hoose ee yaala qaybta hoose commentiga.